sideed boqol iyo 86 waxa la ikhtiraacay Coca-Cola waxaana ikhtiraacay John Pemberton oo ahaa nin dhakhtar ah sidoo kalena ninkan waxa loo yaqaanay Doc waxaanu ka soo qayb qaatay dagaaladii sokeeye ee caalamka ka dhacay haddaba dhamaadkii dagaalkii sokeeye ee caalamka waxa uu saynisyahankani isku dayay inuu ikhtiraaco shay uu ka helo ganacsi wanaagsan oo uu ku guuleysto John Pemberton waxa uu in badan isku dayay xagga caafimaadka inuu ikhtiraaco daawooyin balse waa uu ku guuldareystay laakiin dadaal badan oo uu sameeyay kadib waxa uu ikhtiraacay daawooyin badan laakiin daawooyinkaasi uu ikhtiraacay mid ka mid ah ayaa uu ka faa'iiday lacag badan oo uu ka soo saaray kadib markii uu John Pemberton u soo guuray Atlanta waxa uu go'aansaday in uu gacantiisa ku sameeyo suuq uu ku iibiyo cabitaankiisa waqtigaasi waxa aan ahaa cabitaanka loo yaqaano sooda oo lagu iibin jiray sida hudheelada makhaayadaha cabitaanka sooda oo waqtigaasi aad dadku u xiisayn jireen waxa lagu tilmaami jiray cabitaanka ku sameynaya dhadhan intaasi kadib waxa dhashay cabitaanka imika adduunka caanka ka ah ee loo yaqaano Coca-Cola si kastaba ha ahaatee Pemberton ma haysan fikir uu ku horumariyo ama xayeysiiyo cabitaankiisa Coca-Cola ma ahayn sanadkii ugu horeeyay mid wanaagsan waxa taasi ka sii daran Dr. Pemberton waxa uu dhintay 1888 weligii ma arkin guusha ganacsiga taasi oo uu raadinayay waa Mustafa Axmed Samaqaal magaalada Hargeysa